xalay waxa kulmay aniga iyo dabageed iyo dad odayaala si qaraabanimaan u kulannay wax siyaasadeed oo weyn kuma jirin dhibaato badan oo meesha taallo ii sheegay inuu qabana waa ka garaystay oo ah xawaadle inuu diiday dabageed oo banaanka ka maray anna waxaan u sheegay xawaadle haddaad doonaysid mukulaalmadow ha ka noqon cali guudlaawe ee kaalay soo dhaxgal dadkaaga reehiiraan okay warka intaas ahaa wuxuu ku soo koobmay xaqa reehiiraan raadinaynaa xaqa haddaad raadinaysid xaqa reehiiraan haddaad raadinaysid aniga iguma xirna ugaaskay ku xiran tahay ugaaska u tag u sheeg xawaadlaha lagu shiriyo inaad xaqooda raadinaysid u sheeg intaasaynu ku ekay waxaan ula jeedaa waxa waaye waxa annaga naga maqan oo reehiiraan ka maqan oo xaqoon baadi goobayno kama aynu wada hadal intaan ula kulmay waxay ahayd qaab qaraabanimaa layugu yimid qaab siyaasadeed laguma imaan maya hadday timaadana ma qaadan lahayn haba ka yaabin waa la ogaa saraakiishu waatan hadda wada hadlaysa waxaan wada ognahay ahayd inaan meeshaas aadaayo miro dhalkeedina wuxuu noqday warna soo raac annaga hadduu dadka ku diiday adiga arrimahan taagan mar walba waxaan taagnay wada hadal in lagu dhammeeyo laakiin dawladdaa diidaneed annaga diyaaraan u nahay wada hadal 7 bil kadib hadda xal maxaa u aragtaa 7 bil kadib waxaan xal u aragnaa in nabad iyo wanaag wax lagu dhammeeyo ee aan dagaal wax lagu dhammeeyo aad iyo aad waa loola tus nin walbana hadda wado nin walbana ha arko ishii bugtay ku baakacso